السلام عليكم صاحبي soo dhawaada waxa fiidiyoon duubi waa saaxiibkan Axmaay mar labaad soo dhawaada insha Allah halkan waxaan ku duubi doonaa fiidiyo aad u kooban fiidiyogaas oo aan uga hadli doono cryptocurrency waxaa laga yaabaa dhalinyaro badan in aysan ugu arki jirin oo ka hadlaya cryptocurrency-ga laakiin maadaama aan arkay hadda inay muhiim tahay inaan ka hadlo cryptocurrency-ga maadaama cryptocurrency laftirkiisa aan ku jiro laakiin aysan dhicin inaan waxyaala sometimes aan fiidiyo kasoo duubo marka waxa muhiimka aad ku ah oo caawa keenay ama maanta keenay in aad ama xilligaa daawanayso inaan maanta fiidiyogan uga hadlo cryptocurrency ayaa waxay tahay maadaama asbuucii u dambeysay cryptocurrency-ga aad looga arkay hoos u dhac aan inaba caadi ahayn maadaama laga yaabo xataa dad cryptocurrency ku jirin ama meelaha ka aragtay cryptocurrency laba meel ama bitcoin oo qiimaheedu dhacay ama waxyaalahaas oo kale aan ku aragtay insha Allah waxaan rabaa insha Allah inaan halkaan uga hadlo dhowr qodob qodobadaas oo ah bitcoin meesha ay hadda marayso si dadka mataqaanaa billionaires bitcoin billionaire ama cryptocurrency billionaires ay sheegayaan maxay ka sheegayaan haddii aad u baahanta inaad hadda raadid sidoo kale xagee ka raadin kadhaa xagee kala socon kadhaa hadda kabacdi marka insha Allah saaxib yaal soo dhawaada mar labaad aan ku horumarno waxa ugu horreeya horta aan rabo inaan ka hadlo waxa weeye waa bitcoin una muhiimsan bitcoin haddii aa inii sheego qiimaha hadda ay marayso waa $30,000 halkii bitcoin weye yani waxa weye haddaa rabtid hal bitcoin inaad iibsatid waa inaad bixisaa lacag dhan $30,870 waa inaad bixisaa marka qofkii rabo inuu bitcoin maalgashto khasab maaha inuu hal xabo bitcoin maalgashto ka yar buu maalgashan karaa marka haddii halkan kasoo tago qiimaha bitcoin marba xataa wuxuu tegay xalay 29,000 something I think waa malaynaya xataa inuu ka hoos maray almost 29,970 something waxaas oo kale la tegay marka saaxiib yaal hadalkaas ma jeed halkii bitcoin wuxuu dhigay 30,879 marka asbuuc ka hor bitcoin meesha ay hadda joogto maysan joogin 30,000 maysan joogin oo almost lacag $40,000 ku dhow ay joogtay like on isbuuc maaha like adoo bisha 11keeda maraysaa bisha 5teedii oo kale ilaa bisha 4teedii oo kale waxay maraysaa 40,000 laakiin isbuucan waxaa moodaa inay qiimo hoos dhac aad ay muujisay maxaa keenay hoos dhacan haddii meel kale aan ka fiirino waxyaala qaar waxaa jirta sometimes markii la fiirinayo cryptocurrency ama bitcoin oo kale la fiiriyaa jirto oo ah oo la dhaho fear and greed index oo sentiment oo ah oo lagu fiiriyo cryptocurrency markii la joogo hadda dadka baqdin dadka miyaa badan muxuu ahaa isheen waxa badan greedy miyaa dadku aad miyo waxa ku raad lacnide hadda aragtid via macnaheedu waxa weeye alooda dad badan oo seel garaynaya suuqii baa jiro markaas dadka suuq u seel garayaana waxaa dhacda in maaragta qiimaha shayga uu hoos u dhaco marka xataa yani meel baa ku arkayaa jeclahay waxa la dhaho exchange flow oo ah in mataqaanaa dadku intay kasoo saartaan coinskii ay haysteen oo kale inay kasoo saaraan waladyadoodii oo kale ay exchange-yada ay keenaan oo exchange-yada mataqaanaa ay iska salgarayaan ama like waxaas oo kale marka asbuucan hadda waxaa moodaa in aad u badan tahay marka saaxib yaal yaan ku dheereen bitcoin meesha ay hadda marayso waxay maraysaa meeshii u hooseysay oo markii loo fiiriyo 1 year the last 1 year July baa u dambeysay meesha ay hadda tagtay inay tagto wax u dhow oo ah the last June oo kale bay waxay tagtay wax bishii 6aad bishii 7aad I think bishii 7aad waa kan bay waxay tagtay $29,000 bay tagtay markaas u dambeysay meesha ay hadda marayso u dhow wax u dhow inay tagto marka waxaa moodaa almost meeshay kasoo noqotayna waa 69k wax ku dhow oo 69,000 waa boqolkiiba 50 qiimo hoos dhaca bay samaysay laakiin muddada ay ku samaysay waa midin hadda almost sanadkan bilowgiisii iyo sanadka hor dhamaadkiisii weeyaan marka hoos dhacan qiimaha hoos inuu dhacday bilowday marka October oo kale bay hay tagtay halkan waa 11aad bay hoos dhac inay soo samayso hoos oo dhacda bilowday marka saaxiib yaal
ma noqon kadhaa marka tan fursad maalgashineed yani qofku hadda bitcoin qofka hadda xilligan la joogo ma joogtaa meel la maalgashan karo xilligu dee qofku maalgashanayo way jirta dad badan in leeyihiin bitcoin qiimaha hadda maras waa ka hoos dhici karaa waa news weye laakiin markasta oo aa investment sameynayso qofku investment markuu sameynayo wuxuu u baahan yahay inuu waxa uu invest gareynayo horta u baaro riskigan u qaadanayo ma riski uu calculate gareeyay ma tahay yani dee hal wax inaad inta riski sameysid oo kale lacag isa gelisid kabacdiin hadhow ka lacagta lose gareysid waxyaala badan bay ku keenaysaa marka cryptocurrency horta dad badan billionaireska ah baa jiro billionaires cryptocurrency keliya wax kale aan qaban cryptocurrency keliya billionaire ka noqday khasama adina billionaire ka noqday laakiin waa ka noqon karaa laakiin ma aha laakiin hal coin oo gashatay inaad billionaire uga noqon karto laakiin iyo hal maalin ama bil ama hal sano laakiin inaa patience waqti muddo badan mataqaanaa ishe wax cilmi ahaan aa raadisid mataqaanaa maalgashatid naftaada inaa maalgashatid waqtiga inaa maalgashatid lacagtaada inaa maalgashatid keliya inaad lacagta maalgashatid aadan ma aha hadhowna kabacdi marka wax ku kacdo kale sababta waxaan you have to inaa wixii hadhow mataqaanaa qaabili kadhid sometimes suuqa hadoo kale meeshu marayo qofkii ka waran 50,000 ama kasile ku gatay ka waran bitcoin markii 50,000 maraysa halkii xabo oo hadda ay ka marayso 30,000 ka marayso 20,000 baa halkii 20,000 oo dollar buu saa ku lose gareeyay qofka ma lose gareeyay qofkaasi laakiin baa lacagtiisi hoos u dhacda qiimaha lacagtiisa hoos u dhacda marka hadda yani bitcoin ku dheeraan marka bitcoin wax aad isku bedelaysa 30,000 bay hadda almost 30,000 marka haddii hadda markaana ka baxo aan soo coin kale coin sida hadda ethereum oo kale 2,300 maraysaa muxuu ahaa hadda dadka qaar waxaa jira hadda bitcoin iyo ethereum waa labada mataqaanaa ishaan cryptocurrency marka la joogo labada ugu sarreeya wey marka hadda u fiirsid 7 days last 7 days bitcoin kaliya 17% bay hoos dhac samaysaa halka ethereum ay samaysay 15% that means waxa weeye macnaheedu waxa weeye dadkan percentage ka fahmay boqolkiiba dollar oo kaleba waxay lose garayaan $15 macnaheedu qiimahaas hoos u dhaca camal marka lacagta qofka maalgashto hadday $1,000 tahay hadda qofkii gashan lahaa bitcoin $1,000 isbuuc ka hor 17 yani oo u dhiganto $120 baa lacagtiisa hoos u dhici lahayd ethereumna waa 15 hadda daa u fiirsid oo kale lacagta haddaa fiirisid contenka coin ugu sarreeyo kale lacagta aad qiimaheedu hoos ugu dhaco kale waa lacagta teerada la dhoo lacagta teerada la dhoo almost ama luna dadka qaar ama bahalkiishaan lunada almost waxay hoos u dhacda 28% almost waxa weeye waa qiimo aad bay dhulka hoos ugu gashay weeye marka macnaheedu waxa weeye in teera hadda ay joogi kardho $17 way ka hoos mari kardhaa laakiin waana kasdiga mataqaanaa qiimahaadana hadda laga yaaba inay soo kabato oo qiimaheeduna meeshu hadda joogay meel ka sareysa wato haddii hadda aan soo kala solana $60 bay hadda maraysaa $60 macnaheedu waxa weeye half of waxay joogtaa hadda I think 1 month bish saddexaad iyo hadda markii loo fiiriyo 1/2 keedii bay joogtaa haddii aad u fiirisid 21% baa hoos u dhacda last 7 days keliya 24 hourka markaad aragtid 7 days oo 7% almost kor u kacday haddii aragtid 24 hour almost lacagaha inta badan waxay sameynayaan 24 hour macnaheedu waxa weeye xilliga hadda waa habeen yani waxaa laga bilaabaya 11 bishaan oo kale macnaheedu ma aha inay beri marka xilligan oo kale haddaa fiyo down sidoo kale ama xilliga beri marka fiyo down in xilligan uu yahay isaan hadda marayso marka qofku marka waxaa loo baahan yahay markasta inuu la socdo suuqa waxaa loo baahan yahay maaragtay isheen inuu mataqaanaa waxaan maxaa keenay isbedel waxaan hadda XRP oo kale 81 bay joogtay adoo bishan solaanadoo kale kardhaanadoo kale 0.63 hadda maraysaa dogecoin haddaa dogecoin inta badan dadku waa yaqaan dogekaas inta badan waa mataqaanaa familiar qof kasta oo garanaya waa jeclahay marka hadda dogecoin oo kale iyo shiibada mema coinska oo xadhan shiibada iyo almost dadku inta badan way garanayaan haddana maxaa ujeedaa shiibada dogecointa avalanche laftirka $45 bay maraysaa I think hadda 1 month ka hor $80 inay maraysay waxtaa jeclahay marka waxaan dhan hadda meelaha ay joogaan waa meelaha u fiicnaa laga invest garaysto laakiin macnaheedu maaha de mataqaanaa video markaa daawanayso inaa kuleeya waxaa lacagtaada geli laakiin lacagta aa gelinaysaa noqoto lacag mataqaanaa ishan riski ah aadan riskina ogtana risk gelinaysid lacag aadan bishaan ama beri ama saada u baahan karin laakiin lacag waxaa investment maalgelintaasna aadan ka maalmi karin marka
Chainlink oo kale haddaa fiirisid almost waxay maraysaa $8 laftirkeeda lacagta markay maraysay $16 baa invest gareeyey laakiin macnaheedu ma aha haddaa invest gareeyey $16 inaa hadda yani waa laga yaaba inuu hoos dhac weyn baa lacagta hadda meesha ka gatay iyo meesha joogtaa laakiin the best time hadda ama haddaa iibsan lahaa xilligan oo kale insha allah coinan badan hadda mataqaana insha allah ilaa mataqaana isbuuc muddo isbuucana inaa invest garaysto kuwan hadda ku badan kusoo darsanayana waa jiraan kuwo kaloo awal ah hore u haystaan aan ku darsanayna waa jiraan insha allah marka saaxiib yaal haddasaan waxaalan haddasaan box 1.73 oo kale marisaa haddaa marka waxaweyaan hadal ku daalin qof kasta intaan wuu dul mari karaa wuuna fiirin karaa marka saaxiib yaal insha allah bidna alkarim inaa wabban ku dhalaak hadda u baahan tahay oo kale inaa ogaatid newska oo kale inaa waxa news la socotid oo kale waxa ku dhufan kadhaa oo kale hadda crypto news meesha ku qoranta oo kale ku dhufsan kadhaa ma ku dhuftay page noocan oo kale ku soo saaraysaa marka page noocan oo kale ku saarto all the crypto newsada soo dhan wuu soo qabanayaa every mataqaanaa news markaas cusuboo mataqaanaa hadda USD stablecoin waa teerada ama USD waxa la mataqaanaa loonada qof dadka u yaqaanaan oo kale stablecoinkeeda marka hadda 0.68 bay tagtaa waxaan loogu talagalay inay stablecoin ahaato oo $1 lagu celceliyo soma marka almost marka hadda ku leeyahay 78% qiimo ay hoos u dhacda marka loonadu marka waxyaalaha hadda keeno kale hadda u fiirsatid oo kale cryptocurrency mataqaanaa ishaan market cap of all cryptocurrencies oo kale 1.4 billion trillion way almost 1 month or 2 trillion wax ku dhow ahaa hadduusan dhaafsanayn waxaad dareemaysaa marka in xoogaa maarata hoos dhac kusoo socda macnaheedu marka hoos dhacan ma aha in suuqu uu crash oo dhulku geliya maaha macnaheedu laakiin suuqu waa dhacaysaa mar hadda waxaa jirtay almost the last year I think inay tahay in 1.2 uu gaaray xataa mataqaanaa crypto market capkeedu crypto uu gaaray marka inta badan dadku hadda waxay dhahaan marka ay marayso mataqaanaa ishaan cryptocurrency-ga marka hadda fiya geedku meel hoos marayo kale hadda maanta oo kale hadda videogu waa xilli habeen baa 10 maanta hadda 12 maraya korkaca joogtaa hadda xaggan fiiriso kale historical values oo kale last month fiya 32 maraya hadda last week wax maray 21 yesterday 20 maray oo yesterday maanta hore way now 12 maraya marka damo mataqaanaa ishaan muxuu ahaa ishaan fiya ama fiyarku uu noqdo wax aad u hooseeyo macnaheedu waxa weeye in mataqaanaa fursad ay tahay oo waxaan investment fiican ay tahay laakiin macnaheedu ma inaa inta kaa kali raacdid inaa haddana mataqaanaa intaa ku invest garaysid marka saaxiib yaal qofka hadda u baahan oo kale inuu maaragtay news cryptocurrency la socdo kale wuxuu la soo deegi karaa barnaamijkan la dhaho crypto Opero mataqaanaa ishaan crypto browser Opero bro mataqaanaa wuxuu la soo degi karaa marka Operaha la soo dego ab ahaan buu la soo degi karaa hadduu rabo website ku isticmaali karaa laakiin asaga ab inuu yahay ama ab ahaan baa isticmaala Opero crypto browser wuxuu samayn karaa marka newsiska halkaan uu newska soo gashan karaa sida ahaan buu soo gashan karaa marka newska hadda newsidan uu isoo qabanaya sababta ah websidada mataqaanaa tigta saartay baa isoo halkaan ii keenaya mogta laakiin hadda qofku baahan tahay kalsoon jeedo website news services meelaha hadda newsidan isoo baxay aniga ka helay oo kale waa Cointelegraphka Coindesk oo kale CryptoPanic Epix Crypto oo kale all marka waa badan yihiin baa ka helayaa newskan marka qofka hadda qofka Englishka si fiican u fahmayo kale newsada akhrisan karo kale ha akhristo insha Allah bidna alkarim waxaan rajeynaa insha Allah qof kasta inuu mataqaanaa ishaan wax un ka faa'iiday fiidogan soo dhawaada saaxiib yaal insha Allah fiidayaal aad u kooban sida hadda qofku mataqaanaa insha Allah waa kasoo duubi doona qofku sida markuu isticmaalayo kale exchange-yada caadiga iyo kale suu lacagta u invest garsan karo dhalinyaro inta badan way taqaanaa xoogaa dhalinyaro inta badan waxyaalaha problemka ah waxa weeye waladyada marka la isticmaalayo si waladyada loo isticmaalaa see loo invest garayaa see loo iibsadaa mataqaanaa ishaan coinka qaar see coinkaaga waladka loogu ilaashadaa see mataqaanaa wiladka iyo secret phrase-ka oo kale ama meel loogu waxyaalahaas oo kale oo muhiim ah baa jiro marka suuq cryptocurrency waa suuq aad u weyn suuq maaragtay u baahan qofku inuu barto oo ahaan u barto marka
wax aadan mid baan dhalinyarada insha allah ku daraya wax aadan aqoon waxa ay tahay inaad invest garaysid waxa weeye waa adiga oo invest garaynayo yani dee wax aba meel inaad isku qabatid meel madow gud madow gacan la geliyo kale waxa invest garaynaysid ama waxa aad samaynaysid first of all ogow baro waxaan marka hore cilmi ahaan u baro aqoon ahaan baro waxaan raadi marka qof kasta oo wax kugu dhaamo weydii raadi marka aqoontuna maaragtay isheen wax inaad raadisid wax eeba maaha qofka kura weydiisid marka insha allah saaxiibayaal ka wada faa'iidaysana insha allah suuqa muxuu ahaa meel kastana insha allah qofka awood u leh qofka forex ka tiragelin kara ka tiragelinayo qofki muxuu ahaa isheen cryptona invest gareyn kara invest gareeyo qofka labada isku samayn kara haska sameeyo marka si anaga sameyn oo kale anaga marka cryptocurrency-ga joogno cryptocurrency-ga ma sell gareyno oo ma trade gareyno yani ma sell iyo buy ma sameyno just keliya waa mataqaanaa waa invest gareysanaa oo ah coinka oo arkan inuu fursad yahay oo kale after 1 year 6 month 2 years fursad qiimo macaan sameyn karo waa iibsanaa coinkaas kabacdina waa hold gareynaa marka insha allah saaxiibayaal soo dhawaada insha allah khayr badan baan idin insha allah ina videogan dheereeyo mar rabo insha allah videoyaashan oo badan insha allah speed noocan oo kale oo waxyaalaha cryptoda ku cusub iyo mataqaanaa waxyaalaha laga fili karo waa isbuuc kasta insha allah mar youtube-keena soo gelin doonaa hadday tahay marka ugu horreysay insha allah saaxiibayaal subscribe noo saara insha allah haddii aad ka mid yahay asxaabteena telegramka mataqaanaa crypto fadlan ku biir kana mid noqon tale insha allah si aa waxyaala badan oo hadda xaagan soo dhigan oo kale insha allah soo dhigi doona heshid soo dhawaada saaxiibayaal insha allah assalaamu calaykum khayr badan rajeynaya